caawa xaaladu way culus yihiin adeerow waxna la isu reebi maayo beenna la isu sheegi maayo runtana madaxa la iska saaraya waxaa doontaba noo arag doonto qabyaali nagu shaambadee in badan baanu waxaa weeyaan iska dulmarmaray hadalkee dan baa tidhiya geediga cawliyahanka dawlood haddiina laga dayn waayo dan baa tidhiya geediga ku dara noqona daarood waay waan iska bilaabanaynaa intaanan gudagelin barnaamijkayga qurumba iyo balaayo oo dhan ba hadal waay hadalkii wayna iloon mise wayna habaareen talo waay intaanan ciil hadduu kaa bato ood cadhooto oo wuxuu iswoo dul fuulo macal hadalkaa cidhiidhii kugu noqon oo aanad soo gudbin kareen waayo awr geela marka lagu dara awrta qaar waxaa jira aan doob lahayn oo goraciil laydhaa dabeetana niman ba adu geela fara badan laga qaaday oo markaa waxaa la yidhi geeli faraha badan marka laga qaaday awr goraciila baa geela ku jiray dabeetana wuxuu yidhi markuu baarqabkii dhalay mirkaha dhaafi kari waayo markuu doobta lama ceshada cadha garaacay doob unbaa awrka ka soo booday bobobob uu doobiya calaykum salam maxamed ayuan ku salaamin adeerin badan marka goraciilka waxaa ku keena inuu bilaa doob noqdo waa ciilkan faraha badan iyo caawa marka ceshati haddana iga gura gufaaciyo bad baan baasha ku hayaa waxaan idiin sheegayaa xisbiga faasidka ee imika talada haya deegaanka soomaalida wuxuu ku shirayaa caasimadda deegaanka jigjigaa la ydhaahdaa halkaas ayay isugu yimaadeen xisbigan faasidkii muddadii 27 sane ee ugu dambeysay waxa uu talada deegaanka hayay 27 sane ugu dambeysay faasid baan sheegaa waa faasid waa expire political parties waa dambiilayaal ku dhex jira dhiig waa xisbi dhalanteed iyo dhaqan xumada iyo waxaasoo dhan dadka baray haddana il adayg baa u dheer waxaasoo dhan midna waan idiin sheegayaa soomaaliya markaad doonaysa inaad wax dhaliisho anu qof ma dhaliilo horta sideeda banaanba waxaan dhaliilaa mujtamac baan dhaliilaa waxaan dhaliilaa xisbi siyaasadeed waxaan dhaliilaa maxaa la odhan jiray leadership laakiin qof meel taagan anu ma difaaco mana dhaliilo mana difaaco waayo qofku uu adeero shalayba maana aqoone kursigan iyo siyaasaddanaa keentay caadifad iyo cuqdad midna iyadoon kugu jirin waxaa la doonayaa marka aad doonayso inaad wax aad falanqayso inaad farta saarto halka ay u dhimanayso sida ay wax kuulo muuqdaan adiga waa inaad sheegto waxa masiirka ummadda iyo danta ummadda ka turjubayana waa inaad taageerto qaladba ha noqde qof kale qalad ha warka dee qalad ma noqonayso laakiin haddaan xisbiga faasidka 24 saac saarnaado dee qaaran oo nala fudahaynunbaa iyaga oo cay iyo balaayo iyo waxaan la garanay oo xisbigii faasidkaa ku dul gowracan unbaad arki xisbigan faasidkii waa kii cadiilay uu aasaasay dee onalfna waanu aasaasnay bay lahayn maynaan aasaasin balaayo aasaas waxaa aasaasay waxaa imika wadwata waay intaas waa iga araarde waayo ereygaaga hortiisana afeef baa la dhigtaa aqalkaaga hortiisana ood yar baa la dhigtaa waan kasi afeefanaya waxaan idiin sheegayaa xisbiga faasidkii waa kuma xisbigan imika jigjiga ku shirayaa muxuu yahay xisbigan jigjiga ku shirayaa muxuu soo qabtay 27 sano ugu dambeeyay xisbigan jigjiga ku shirayaa baagaro noocee abuu leeyahay xisbigan jigjiga ku shirayaa rajo intee la eg buu doonayaa inuu shacabka ku hago xisbiga jigjiga ku shiraya ajendayaashiisa siyaasadeed iyo aragtiyihiisu maxay ku salaysan yihiin xisbiga jigjiga ku shiraya maxaa laga maagan yahay maxaase lala maagan yahay muxuuse shacabka ka maagan yahay masiirkiisa iyo mas-uuliyaddiisu maxay tahay intaasoo dhan waa qodobada aynu doonayno in aynu caawa ku falanqayno oo aynu isla qaada dhigno waxaan idiin sheegayaa xisbigan faasidkii horta waa faasidna waa faasid egas jabkay ina badanba waxa ay nagaga sii daran anu qofna uma jeeda hadda qaar baa moodi waar kuwa meelaha imika qurbaha jooga ee difaaca waxaan meesha jooga ee jigjigiyo waxaa jooga mid baan idin xasuusinaya adeerow adiga oo iska caadi oo cararay oo waddankan iyaga uga cararay ceeb bay kugu tahay inaad ammaanto haddana iyagii aniguba saan cabdi maxamuud umar maalmaha beryihii hore u caayi jiray unbaa maalmihii la xidha anigoo ooy aan is arkay magaasaan war waxaan aniga isaga uma ooyiye shidaalka iyo waxaan u sheegaya baan habeen baan dee yar khalkhalay moogtay marka adeerow xisbigii aad shalay ka carartay ee dadkaaga iyo maxaa la odhan jiray ummadaada gumaaday marka aad ammaanayseed ammaan la soo hor fadhido ee aad weliba doonaysa difaacitaan inaad kursi wax aan la garanay aad
nidaamkaagu muxuu yahay ta kale mid baan idin sheegaya axmed shide iyo mustafa haddaad kala jeceshiin qabyaaladistayaal baaki waa guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen xisbiga faasidkan bayna ka wada tiriyaan waa isku mid oo macno badan ma samaynayaan labaduba laakiin adugu ha kala jeclaan daadeere waxa weeyaan kolla midda kale dadkan iminka taageera dawladdan meesha ka talisa dad aan isiri inay wada waalan yihiin marar baan soomaali way wada waalan yihiin iminka iyagoo wax caayad arki marka tirahdo welka maxaad u cadinaa koona maanaga caayaba oo iyagoo haddana soo ruuxayda haatan managa waalan mise jigjigaa laga heesaya manaa wardheer baa laga heesaya waay xisbigani waxa uu ka badan 720 sano hor taagnaa ummadda waxa xisbigan aas-aasay markii ugu horreysay anigu markaan ku leeyahay aas-aasay taariikh baa dib loogu noqdaa waxaa la sheegaa hadalla macquula waxaa la sheegaa wax macaana ummadda ka gadma waxaa la sheegaa sidii sooyaalku ahaan jiray waxaa la sheegaa waxaani halku ka yimid adiga oo siyaasaddan iyo waxaba 2018 dusha kaga soo booday 6 biloodna Facebook ka qeyriyay fahamsaneen halka loo socdo iyo fagaaruhu halku yahay waxa la filayay waxa la rajeynay midna aan garanayn ajendayaasha la doonaya in dalkan iyo dadkan lagu jiheeyana aan la socono la jaan qaadi karin in aad qabiilku jabhad iyo qabiilku xisbi iyo waxaan la garanay igula soo cararto ma wada doodi karana waa iska daalana haddaba ay tantana dee waa lagaa badiyay bay ka dhiganta dibana soo noqonaya xisbigan imika talada haya talana ma hayaane xisbigan dabaqoodhiga ah ee dumaasha ku yimid wax kalena waan ku sheegi doonaa mar dhow faasidna waa la idhaahda yacni ma fiicna oo waa aada uma firfircoona fidmo wadayaal weeyaan dadkeenii in fara badan fasahaadiyey 1991 wixii ka dambeeyey waxaa jiray xisbiyo siyaasadeed oo isbeddelkii TPLF ay hogaaminaysay ee Tigreeyisimka ku dhisnaa ee talada markaa hayay waxa uu yidhi dimuqraadiyaddan oo kale ayaan idiin samaynaya waanu ka qoray arina daasad kama ilbaxo baaga ariga la yidhaha daasada kama ilbaxaba ayaan waa afaradeeda haddaad u tuurto uu iska didi uun marka waxa weeyaan xisbi bay yidhaahdeen marka dimuqraadiyadda wixii baan ku moodnay oo nalaf waxaa la aasaasay marka oo nalaf 84 la aasaasay xisbiga iyaduna markaa ahayd doorashay gashay aduu dhowr iyo 80 xildhibaan iyo madaxweynihii iyo wixii oo dhan iyada heshay ha yeeshee xisbigan dimuqraadiga shacbiga la yidhaahdo xisbiyadii leego iyo ONLF ayaa ku midoobay qaar imika soo rucleeyay waxay ku odhanayaan oo dee ONLFtu waxay odhanaysaa xisbigan annaga aas-aasnay dee macnaheedu haddii kulaan annaga aas-aasnay hana lagu dara horta ma aha xisbigani waa badeecad caajis aan dadkaba ka iibsamayn nagama gadmayaba haddaad badeecad keentay Hargeysa ama Jigjiga ama Addis Ababa oo lagaa iibsan waayo badeecad caajis baa la yidhahdee waa xisbi badeecad caajis oo naga soconaynba marka ciidu ma qabno horta taa laakiin sidii ay wuxuu dhacanay taariikh sooyaalka ayaan idin sheegay xisbiyadii ku midoobay laaga iyo waxaan oo nolol ha yeeshee taladii waa la marorsaday markii ugu dambeysay oo nolol waxay diiday qoorsiga waxa laga waa koow waxayna duciya habar anagu midna uma baahnina duurkan ka xignaa duulinimaan aanu qaadanayno TPLF dabada u dhaqno waay leego way soo hadhay iyadoo ilaan markeedii horeba sheekadeeda ugu badani qandaraaskan imika laga sheekeeyo dhulkan iyo waxaan la sheegay iyo jagooyinkan waxaan bay iyaguna ka sheekeyn jireen iyo qabyaalad iyo qurun aan la garanayn wax yaano waxani ma aha waa tababaro iska soo jiray haddaad aragto qof ka sheekeynaya adduun iyo dhadhamana dhadhan ma laha sheekadiisu dee marka iyagu waxay dhahaan wareedha annaga duurkaas la galo ayay badani noogu jirtaaye naga bax way iska soo hadheen waxaan imika aad xisbiga shacabkii wax ku sheegaysaan baa soo hadhay waay xisbigan shacabka haddaba muxuu yahay xisbiyadii markaa aasaasay horta waa xisbiga keliya aanay u dhammayn waa kow xisbigani waa xisbiga keliya ee dadkiisa xasuuqay dhiigga dadkiisiina ku gaadhay imika waktigan la joogo kusoo gaadhay waana xisbiga keliya in adayg wuxuu ka qaba haddana ku faanaya dhagartii uu dadkiisa ka galay iyo dhaawacii uu u geystay iyo sidii uu xasuuqay iyo isku dheeraynta dadkiisii weli way la soo taagan yihiin oo way ku faanayaan waa laba xisbigani waa xisbiga keliya ee aan soo hor istaagin dadkiisa ee aan cafis weydiisan haddana il adayg wuxuu ka qaba leh xisbigani 27 sano ee lasoo dhaafay guulo wax ku oola ayuu dadka gaarsiiyey annagaa balaayo aragna iyo baas war guulaha wax ku oolkuu dadka gaarsiiyey maxasuuqan iyo jeelalkan la dhisayba
guryahan iyo waxaan ka sheekeynayan yaa gelaya dadkii geli lahaa sotin la baabiyey ta kale xisbigani waa xisbiga keliya ee ilaabay baahiyihii dalka iyo dadka beeyadii ku xeeray iyo sidii ibni aadamku u noolaa waa xisbiga keliya ee dadkeennii ka dhigay daanyeeray dadkeennii noqdeen yacni noloshii ibni aadamkee caadiga ahayd lama haystaan wakti xaadirkan dad innaga deegaankeenna jooga waxay aaminsan yihiinba president cabdi maxamed cumar iyo t b l f iyo wixii in ay ilaa iminka taliyaan bay aaminsan yihin waa laga dhaadhicin karaa qaar baan kitaab ugu maray oo yaabay sheerna inaad tirahdaan haddii kale waxaan iska soo gebagabeynaa 10 minut weyn ilaa iminka qaar baan kitaab ugu maray habeen iyo maalin aan ku nidhahnaa dabeetana mid baa igu yidhi inta meel kala soo hadla ilama aha cabdi ilay baa adduunka ka tegay ama t b l f baa waddanka dhaaftay ma aaminsani dadka heerka ay gaadhsiiyeen waa bal istuujiya inaad nooshihiin ayaa la iminka oo nalaf bartaa dadkii waa laba nolosha aas-aasiga biyihii waxbarashadii caafimaadkii iyo maxaa la odhan jiray sidii ibni aadamku wixii oo dhani meesha wuu ka baxay iyaguna waxay ku mashquulsan yihiin kuwii ka horreeyana dhaantay ku mashquulsanaayeen kuwana waxay ku mashquulsan yihiin meel cagaar loo kamarada lagu qabta iyo hantida qaranka oo la isticmaalo waay xisbi haddaba marka la yidhaha dimuqraadiyadda markaan anigu hadda xaafadiina ma dhaliilaya qof oonu aan dhaliilayaan xisbigan xumee faasidka adu xaggii kale ayla keen qaar baa iska muraadilaade waay xisbi markaad maqasho xisbi qaranna aada maqasho xisbi qaran waxa uu ku doodaa oo uu ku ololaystaa oo uu shirkiisa iyo ajendayaashiisa asambariga ku qabsadaa qaaraan uu isagu leeyahay miisaaniyad cayiman oo la wada yaqaano oo la garanayo gaadiidka dawladda goorta uu gabalku dhaco in la isticmaalo ama goorta xafiisyada dawladda la xidho waa hantidii qaranka ee waajib ma aha waa kow hoolasha iyo meelaha dadka loogu wada shaqeeya mujtamaca ka dhexeeya macniyan ma aha inuu xisbi gaar u isticmaalo warbaahinta qaranka inuu xisbi keliya gaar u isticmaalo ma aha waa warbaahinta qaran horta qaran ma garanaysaa wuxuu yahay warbaahin qaran haddaad maqashaan waa telefishinka dawlad deegaanka oo kale kan iminka xisbigu uu leeyahay xisbina malaha waa yacni waa waxaan iminka ay eray bixintii af soomaaliga sida loogu hadla iyo siiqada toosan ee dadka lala hor yimaada ma yaqaanaan waxay ka yaqaanaan dalkeena Ethiopia ra'iisul wasaaraheena dalkeena Ethiopia bahwadaagteena bagaynu shir qabsanay waxaasay af Soomaaliga ka yaqaanaan waa tii af Soomaaliga ba ka arbushineedeen weeyaan Afrika ba ka taga geeskan wad ku indha beesheen kow inaad isticmaasho waxaas oo dhan looma baahna xisbigan faasidkii kow wuxuu isticmaalay miisaaniyadii deegaanka ee qaranku lahaa xisbiyada mucaaradka oo dhan baa wada leh miisaaniyad dad maqasho qaaraanka iyagu ay leeyihiin baa loogu talagalay inay shirarkan oo kale ku qabsadaan waa kow billions bay isticmaalayaan waa kow gaadiidkii iyo hantidii qaranka haddii la yidhaahdo waa gawaarida hadhiga waqtigii shaqada ee xafiisyada dadka aada ugu shaqaynaysa way dhammaatay ma dhigi karaan oo way wataan waa laba ta saddexaad warbaahintii qaranka gaar bay u isticmaalayaan ta afraad waxay samaynayaan mataqaanaa ma dareensana waxyaabaha ku xeeran deegaamadeennii iyo dalkii aynu lahayn waxa ay doonayaan inay ku casuumaan dadyow ay kaga raadsanayaan kuraas alaayadin ku dhacday iyo gurum garan is urursatay waana isku mid hadda xisbi baan aanu sheegayaa qof ma sheegay kuwan gaarka ka hayo da taliskani haddaan iminka idhaha taliskani sheekadii cabdimaari haddaan idhaha taliskani wuxuu hayaa tubabkii dee tubtii talisyadii hoogay haddaan idhahdo way muraar dilaacayaan macna ma samaynayso oo adigu waxaa tahay jina xaqsay gaarka uun ka haya waxaan la garanayn laakiin mustaqbalkaagii iyo masiirkaagii ummadeed meesha aad ku ilowday macnaheedu ma wuxuu noqonayaa mid aad isku xafatiin ood ilaaliso iyo mid xisb waxaasuu noqonayaa de ka gudub habaa kusii raagin waa aragtiyaha gaagaabane axmed iyo kan kalena waa isku midun aniga xaggayga waa isla dameer iyo labadii sidaan waay waxaa intaasoo dhan haddaba inoo dheer kow waxay samaynayaan deegaamadeenii way barabax wax la dhaa bay sameeyeen waad lahaan jirtay wax la dhaa baa imika socda maanta waxaad ogtihiin degmada waa gobolka wardheer ee dahabiga ah gundhiga oo ah halganka ogaadeeniya ee gaboodfallada ugu faraha badan loo geystay talisyadii kala dambeeyey gaboodfalladii ugu xumaa bay u geysteen kow waa dadka keliya ee damiirkoodu shaqeeyo dadnimadooduna u saamaxday guddoomiyihii owanalaf sheekh ibraahim cabdallah markii uu wardheer tegay ee lagu soo duulay daalimiintu ay ku soo duuleen 40 iyo dhowr qof baa ku dhintay adeer oo waxa weeyaan nimankan niman dhayal gala ma aha xabadooduna markay dhacaysa bini aadamka iska day baalka buuraha ku jira banaanka u soo bax waa kow
ilaa kuwan ka horreeyey waar bal meeshan lacagna ha siinina miisaaniyadna ha siinina maydun booqataan bay ahayd markii hore booqashadiiba balaayaa ka dambaysayoo ku jufano qalab isboorti cid kale bay u aqoonsan yihiin bayna leedahay adaaro deegaamadan soomaalida dhulka waa la kala leeyihiiyo doogga soo baxay haddaad adigu aaminsan tahay inaan anigu intaan qabiil iyadoo oon laygu gardaadinin qabiil iyo ka sheekayn reer layguma gardaadin go-aanka aniga laysiiyana waxa weyaan geygan inaan anigu leeyahay qof kasta oo soomaalina inuu ila leeyahay ha yeeshee haddana deegaan walba ilaahay qofka ku beera anigu kaa yeeli maayo dee inaan ergiso aad waxa weeyaan aniga oo kula soo deg oo ila joog oo wax walba kugu ogol haddana in adeero sheeko kale la timaado kaa yeeli maayo ka doonaya inuu kursi ku gaadhowna been baad niyadaada u sheegta adeer maashan intaynu naqaano way dhaafto cirkay maraysaa caadi iska dhigaydu annagaa runta idiin sheegayne waxa weeyaan kursiga iminka waxaa la marayaa heer xisbigan faasidka ah iyo kuwa xilka ka haya xaqiiqda fahamsanayn xaqa ummadda inay duutiyaan ayay si xeeladaysan doonaan inay inooga dhaadhiciyaan iyagoo inooga dhigaya qabyaalad iyo qurun baanu diidanahay qof jeclaysi wax la dhaha baanu iska fogeynaynaa waxa aanu doonaynaa in aanu dadka soomaalida asino war annagu ma annagaa soomaalidan wax u diidan ma annagaa soomaalidan la dagaalansan ma annagaa soomaalidan iska fogeynaynaa ma annagaa soomaalidan fidmo ku ah adaa fidmo abuura maya sideen fidmo abuur ku ah fidmo abuur sideen ku ah xisbiga faasidka ahow marka uu shirayo kama fikirayaan oo raja kagama jirto maxaa la idhaahdaa mustaqbalka soo socda intay doorasho soo galaan oo ay nalaf la soo istaagaan iyo sarda ururka isbahaysiga soomaaliyeed waxaa la dhahaa Somali Freedom Fighter ururka dib u xoreynta ummadda Soomaaliyeed FCF iyo waxbaa la dhahaa ururka intay la tartamaan kalsooni ma qabaan ay kursiga mar labaad ku hantiyaan laakiin meesha waxay ku hayaan sidaynu u dhamaysanaa 8 bilood haray doorashada sidaynu u dhamaysanaa oo aynu hanti uga dhaqanaa si aynu waxaas oo dhan u sameeyno oo meesha u sii joogno waa inaynu soo dhawaysanaa dadka koonayaasha xiga si aynu kursiga ugu helo war ma nin koona xiga kugu hayn kara kursi kuguma hayn karo ayaa runta idin sheeg kuguma hayn karo nin koona xiga kursi kuguma hayn karo kursi war dheer oo iibisaana wallahi inaan laga yeelan ku dhagax buurood iibisana iyo jarar hadalkeeda badaa af dheer raha ku riyoon shabeelle sheekadeeda iska xid fiiqna way afka ka xidhan tahay meeshii la odhan jiray sagagna waaba salaxan tahay iyadu shinila sheekadeedu way dhammaystiran tahay iyadana oo halkaa shaki kama joogo waxa meesha ay say noqonayso anu laakiin mid baan idin sheegaya kuwa riyada dhalanteed bay been moodaan qaar anaguna dhab baan ula hadlayaa laakiin waxay run moodeen sheekadan budubadaada warniyo kii dee kan ka horreeyey ayaaba dhaamay malaha waxa niyo waayo habayna laay idaacadiisu caadi arrin wuxuu si kale ka noqo halkaana waxbaan idiin sheegayaa dhalanteed kursi ku dheeraysi ah ayay run moodeen been baa loo sheegay dabeetana waxay dhahaan war dheer annagaa degenayn bay qolo makaahir iyo wax la dhahay waa yidhi annagaa degenayn qabiil haddii lasoo hadal qaadana ma aha adu qabyaali bay arago qabyaalad ma aha ee adeero meeshan qabiil wax lagu qaybsadaa qarankii Soomaaliya ee weynaana 4.5 bayna yiraahdeen haddana afka ka ilaali bay yiraahdeen waa aan ku sir oon sagxadda adiga ku dhigo xaqaagana haba ka hadlin marnaba sidaa wax u eg weeyaantii anu intaan aqaanay way dhaaftay markay laakiin anigu waxba ka duwi maayo wallahi sida ay tahan idinku sheegay waxay yiraahdeen qoladaas waxay tiri meeshan annaga le te waana run oo weynu ku ogeyno ilaa anagu iska daayay ka awow iyo kasi awow iyo kuwa kale oo aan la gaarinba adar weligood iyagaa deganaa adiguna dool baad noogu timid oo daaqsin baad meesha u degtay dabeetana anaguna dad dun oo damcina oo damiir leh dareenkoodu wanaagsan yahay damqashada soomaalinimadu ku weyn tahay dadkana ilaaliya ayaanu noo martida iyo dadka mudantooda ah aan marna meel uga dhicin kuwaasaan anaguna waxaana taa kuugu daliila dadkan qabiilkan meesha dega 3 qoomiyadood 3 dhul ayay kala degan yihiin kow Somali state meesha imika la dhahaa Soomaali galbeedna waa la dhahaa si kale aan u dhigayaa gobolkii magacaad ka hadda ogaadeenaya haddaan meel kale kaaga dhuftana adaaba xanaaqide dib baan u noqonayaa waa Somali state bay degaan waxay degaan NFD meesha la dhaahdo odaygii laxda ugu hor qaaday nayl la'aan baaba nagu dhacday barra cali aadan ducaale mar baan maanta raadiyay bisad baan helay laakiin berri ma sawirkeeda soo dhigay
odaygii meesha ugu hor qaaday gobolkan uu matale ee Gaarisa la yiraahdo halkaana way degaan Kismaayo iyo Jubbaland iyo meelahaasna way degaan iyo Shabeellaha iyo meelaha dhexe waxa saas loogu qaybiyay sidii kurdida adduunka kurdiga oo kale waxa saas loogu qaybiyay dad jacayl wadaniyad iyo walibana damiirkooda oo ka fog inay qaataan dabadhilifnimo iyo dabaqoodinimo ayaa taa keentay dabeeta dadkii Soomaaliyeed beeyadii ay ku noolaayeen ee ay deganaayeen ayaa waxaan reeraa yimid ma jidhadan iyo waxana inay dadka soo dhiibi jiray iyo qolyahan xaqan imika ay Soomaaliland iyagana isir haystaan dabeetana waxaan ku bal iska deganaada halkan indii gaalaho kad iyo waxbay nagu wareeriyeen waxaan garaneyn dadkuna waa isku wada mid ah Soomaaliyeed aan dib ugu soo noqdo sheekadii saxda dabeetana waxay yiraahdeen iska dega baan ku nidhi hadda balaayana ma garanayaan nimankan caruuraan la isku ciyaarin baa jiree ma garanayaan waxaan inay dadkii xabadu waa qorigaba xabadiisa shaabay ka dhigtaan oo xabada xitaa ma karto xabashigana aad uma yaqaanaano nin baa waxa lagu yiraahdaa xabashiga maxaad u baran weyday waa reedoolo waasuu yiri xabashiga maxaan bartaa berri bay tagi baan islahaa waana marka wadaniyada halkaas ka gaarsan dabeetana waxay yiraahdeen waanu deganaa meesha waxa la yaala meesha wuxuu yiri waa deganaan jirteen waad lahaan jirteen war waanu lahaan jireen marka miyaanu dhimanay soo naga joognay marka ay ciidan ka badan yihiin meel walba degan war waad lahaan jirteen beeda ka daro dibi dhal hadana waxay sameeyeen konton gaari oo kala kaana oo laangaruusale iyo balaaya ayaa waxa kaga soo gureen gaalkacayo dad konton kalena laascaanood bay dad kaga soo gureen waa laba boqolkii gaari ayaa waxay keeneen oo wada dad ah magaalada Wardheer loo dhanjay Wardheer markay keeneen waxay yiraahdeen meeshan aan weegaaranayna oo imka tagayna ayar degada kaaga darantii xisbiga faasidka muxuu sameeyay xisbiga faasidkii wuxuu ba aaminsan uu aqoonsan yahay qalbiga alla idin tiro qalad war waa dad si kala waxay aaminsan yihiin gobolka Wardheer Puntland malaha Puntland bay u haystaanba oo idaacad kala qoryahaas halabay taagan yihiin waa waxay taagan yihiin ka wakiilka uga noqonaya xisbiga faasidka xubnihiisa joogtada ee qolyahan 8 bilood doonaya inay jagadaas inay sii haystaan lacagta si urursadaan waxay qolyihii Puntland imika madaxtinimada ka qabsaday unba 24 saac madaxtooyadan dulmiga ku dhisan masaajidka weyn lahayn unbay ku jiraan 24 saac nimanku waa iska dhadhama raaco dhuuni bay u dhinteen malaha dhaqaale ku qabaan waxa laga dhaadhiciyay Wardheer waan ciidi loo bogay hareerigii wacnaaya aad walwaala aragtida yaa Wardheer ku soo bara halkii Maxamed Cabdullaahi Ciise Sangub lahaa heestii uu qaaday Cabdi Tahliil wuxuu ka dhaadhiciyay qolada ma jidhada laba iskale hogaanka maxay iyaga iskale dagaaladii iyo dadkii wixii la leynayay meena dhex gelin oo rasaas iyo hub badan way haystaan Cabdi Yara ma xirxirin iyaga way iska dihin dagaalkani waxana waa xiiseynayaan laakiin nimankan Wardheer nimankan waa niman daalay oo nimankii halganka hogaaminayay nimankan la yiraahdo oo iyagu xabadii waxa soo daashatay qoryahoodina waa la urursaday laakiin digaday ugu jiraan 500 miro la soo wada baxeen sheekasaan ku hayo waxay aaminsan yihiin ninka Wardheer ka yimaada ee wakiilka u noqonaya xisbiga faasidka wuxuu noqonayaa nin majida waa carabtu waxay tiraa toobal caalam ma yakhafadiis shayga amaanadihi ma qariyo dabadaada kursi amaana abay yaa la siiyo lagu leeyahay ku amaanaysta laakiin ragii lahaa buu gacanta ugu jiraayo magabadayaalba Wardheer joogo anu halka dabshidana ma yihiin laakiin anu waxaan ku sheegayaa adeero meeshani dadkii lahaa waa joogan annana waa joognaa waa laba oo waan ma garanaysaa hada sheekadu waalato lag maliyuuna baratolkay laba nin dheeraayo yaa iloodin kara haddii la bad garo soo arlada leela qarin maysa yaa iloodin kara soo libax shaaro balami inama la wadi kartaa baraadar awaalan ninkan waa lag maliyuuna laba kun isla ma jidha iyo waxaan aad naxariis adeer nagama dhaxayso kuwa dadka si u soo dhiibi jireen baad garanaysaan gabdhaheena markay guursadaan waxay ku yiraahdaan abooyad baan qabaa iyo xabasheed faroola xaal laga qaaday oo la maxay af Soomaali baratay marka ay sheekadu ku ciirsan tahayna waxay yiraahdaan daaro Ismaaciil baynuna iyo kab iyo balaay iyo lax iyo waxbay ka sheekeeyaan aaro ana garan mayno waxaasi uma baahnin cid ka sareysa halkaan taaganna maxaa yeelay cadaaladka weyn baan sheegan markaan doono xitaa absamahan ku hoos uga degnaaba laakiin absamo iska nahay ma garanaysa iyo kuumadahi iyo wixii la oran isku dar
markay sheekadu waalato waabanu ka yara degnaa oodaasan iska taagnaana adiga laakiin markaad ku maxaabsanayso daarood ma jeertan ku jira meehi baa dhaanta marka kuwani saasay aaminsan yihiin wallaahi arqalad kasta oo taagan iyo wax kasta oo dhacayana waxaa mas-uul ka ah xisbiga faasidka waa gob nimankan iyagu reer wardheero odhan maayaan xisbigan faasidka iyo ciddaasaa yaa wax nagu samaysay waxay odhanayaan ilama ahayn hebel baa maxay sidaa yeeli ilama ahayn wardheer baa ilama ahayn maxay tahay war caadi runta ugu sheega oo faasid waa faasid u dhah laan fidma maaha waay dib baan usoo noqonaya xisbiga faasidkii gobolkaa farihiinu ka saarto ood arkaysan laba ka dhig haddana oo bedel oo saaro gobolkii dahabiga ah ee reer jarareedka nagu wareeriyeen kaas haddaad facebook gasho 500 oo jarar janno abaad arkaysaayo markaasaad yaabaysaa jarar janno dhagax buur maxay mid aan weligiiba dhagax buur adag baa koran reer dhagax buur baanayo ka soo cararay hadda anagii afraad ku dhalanay baan sheeganinba waxa weeyaan waxay ku odhanayaan yacno magaalada facebook waa gobol la-aanta iyo dalyaraanta waxay tahay garan maayo tiina iska cabad reegaashama waan iska dhaweynayaa oo isagana halkaana waxaa matalaa baa layidhi ninkaa qabyaalad ka carar baynuna waaba iska qaatay taasoo waxaan idhahdeer waa la iska ogolaanayaa laakiin tani waa tii ugu dambeysay ee deegaankan iyo dadkan iyo dalkan aan marnaba cid loo daba fadhiisteen marna cid looma daba fadhiisanayo wallaahi oo bilaahi tallaahi haddaad kursi baad ku helaysaan isleedihiin khiyaali baad aaminsantihiin saddex magac ilaahay khiyaali baad aaminsantihiin reer wardheerowna xaqiina raadsada xisbigan faasidka ah ku fooriya filimkiisu ma dhammaystira waa xisbi dhinac ka raran waa xisbi fagaarayaasha siyaasadeed ku fashilmay waa xisbi faasida waa xisbi doonaya inuu dalka iyo dadka qaybiyo waa xisbi ku salaysan mabaadi leegaysan waa xisbi aan majarihiisa meel laga hayo la garanaynin waa xisbi maamulkiisu uu midba dhinac u socdo waa xisbi maalaayacniya waa xisbi meermeertiya waa xisbi megalootiya waa xisbi hantideennii iyo dalkeennii iyo dadkeennii iyo deegaankeenii buu doonaya inuu minority ka dhigo cabdinajiib oo shaar kala leh malaha wuu nool yahay ayaa doonayay usii daba fadhiyaan markaasaa wuxuuna odhanaya intuu soo fadhiisto dictatornimadii siyaasadda waxaa ku jiraan idiin sheegaya xisbiga faasidka kow nin jaajuus ahaa af xabashiga yaqaanay nin jaajuus ahaa oo dadka soo gumaaday nin bedow ahaa oo meesha la keenay nin walba ninkii siyaasadda u galay markii hore ee cabdi keenay ee yacno caqligiisu ku salaysnaa xagga saraa la iga wataa dawladda federaalka iyo halala shaqeeyo ciidamada militariga noocii ayaa inoogu wada jira xisbigan lagu sheegayo siyaasaddiisu base male aqoon-yahanadii oo dhanna waxay yidhaahdeen ma aqbali karo xisbigani calaykum salaam cabdi musafe inuuna nijaaseeyo cabdibaasid oo imika aqoon-yahan laga wada yaqaano qaaradan madow ah waxa uu ka maagay inuu isku wasakheeyo maamulkan xisbigan magalootiga ah ee waxa weeyaan meelsha uu ina geenaya meesha uu inaga keenay midna aan la garanayn majarihiisuna yahay biyo la-aantaa maanta aan degmooyinkeenii mid keliya oo biyo ka shaqaynayaan ma jiro horumarkana korna waan u soconnaa waa 90% sheekadaasay iyo ka yaqaanaan af soomaalina waxay ka yaqaanaan maamulkeenna suuban habsami u socodka iyo horumarka la gaadhay gaajada iyo faqriga aynu ka gudubnay bagaynu shir qabsanay waxaas af soomaalina ka yaqaanaan taas ma ku anfacaysaa horta xisbigu waa kaa dadkan kale ee Soomaaliyeedow ha ku mashquulin xisbigan faasidka ah saami qaybsigiisa si haddaan kuugu dhiga kalena waxa uu noqonayaa xisbigan faasidkii uu ku heshiiyey sheekadiisana ugu muhiimsan oo keliya in uu ku saleeyo sida wax loo helayo kow reer walba halka jaajuus ee qandaraaska qaadan kara in jagadan la keeno haddii 10 jaajuus oo reerkiina aan la keena xitaa jacayl yaanu kaa gelin jagada xisbiga faasidka laakiin waa adduunyo oo lama daayo warkeede dee dadku way ka sheekaynoo dee waxa weeyaan yaan lagu tasaynin oo waxa weeyaan anna hadhow bay irsaaqadii caadiga ahayd iyo maamulkii iyo madaxdii oo nabad iyo cadaaladii ba mar dhow imanayso
hebel maxay lahaan jireen ayaa lagu odhan doonaa dabata xisbiga faasidka haddaanad waxbaba ku lahayn dee hadhow baad wax waayi horta sidaasay dadku uga sheekeeyaan xisbigan faasidka jagooyinkiisana ay uga warramaan xaaladiisana ay dadka la isula wadaaga laakiin kalgacal kale meesha ma yaalo kuwa mas-uuliyiintiina hunguri kagama jiro jagada berri inay qabanayaan jacayl baa laakiin kaga jira sii joogitaankeeda kalluunka bisadu baa layidhi kalluunka way jeceshahay kalluunka waxaa la dhaha way jeceshahay laakiin biyahay nacab tahay dee kalluunkuna badduu ku jira biyaha ku jira marka adeerow waxa weeyaan kuwani kursigana way jecel yihiin mana garanayaan sidii wax loo jahayn lahaa ma garanayaan siyaasadeedu meeshay u socon lahayd waxaan idiin sheegayaa cabdikarim sheekh muuse qalbi dhagax iyo mas-uuliyiintii maanta ka qayb galay xisbiga shirkiisa iyo jenaraal cabdullaahi mukhtaar la taliyaha arrimaha siyaasadda ONLF la taliyaha guddoomiyaha ONLF ahna madaxa siyaasadda amase hoggaanka siyaasadda khudbada cajiib u ka jeediyey wuxuu barayay sida erey bixinta loo isticmaalo ereyga ugu horeeya ee masraxa lagala soo istaago haddaad tidhaahdo nin la leeyahay baan ahay dee qof la leeyahay wax ma leeyahay mas-uul dhan oo la doono 8 milyan baan masiirkooda hayaa oon meel madal la soo istaagaya xisbiga dimuqraadiga shacbiga soomaalida Itoobiya yacni waxaa ile Itoobiya ile nin dhan oo leh dee haddii adiga lagu leeyahay adeerow aniga ima hagi kartid jenaraal cabdullaahi mukhtaar hadalkana la kala odhan ilaahayna la kala bari oge markuu masraxa soo istaagay wuxuu yidhi madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed ee Mustafa Maxamed Umar guddoomiyaha waxaan kan de meesha gaaban ee ummadda Soomaaliyeed ee isagana bal inuu erey bixinta u saxo sarbeeb bay ahayd oo waxaan garan maayaane markiiba Soomaalida Itoobiya la soo istaagay isagoo la boodaya dabeeto lo-da shayga la yiraahdo haddii libaax aragto way ka daataa xerada oo halku joogo ayay ugu tagaan libaaxa way u daataa loob dagagaga oo dijibisa markaasay loodu u tagtaa madaxa kale waa u yaacda mid aan anu garan waayay bariyahan dambe oo maxay sayid iyo wax la yiraahdaa wuxuu yiri Axmed sida hogaamiyihii gacan ku rimiska ahaa ninkii go'doonsanaa ee gabalkiisu waxaan armuna xira maxaa loo لا مركز بدنا حركنا وبرتين أنت حرك الآن تايد بلقى رونا مع المهي دويد خالد تكرنا بلاين وقدر رقاتين أنتوا سكت كم ماشى سوا محل أورين تري وحولي وما هذا اللي أنا له أو وما هذا اللي أنا ذي خلاص دبعت أنا مركز تنبو وتجيو صا والأذار وما هذا اللي أنت كوبو كجاب اللاعب تاسي مرق مدام بهاي لكن لقطة مركب اللي بعصر عدى قاضي تبي اللي بقى حاولتك تهاي وعوين مدح لبان الله إما الله يفتح وصعد على مركز ويسوي تجي ويعني نن احترام وقبل بدي مركز هو كيف ديهم بوجود تجيه ورا عادي كده بيكون أنا بالعوش هذا إسكوده شركة أيوة حنا إسكا معمولة بيكون يعني معلمة سميني صح حاجة ملاي يعني بالك قرن تاي مدة الرام مسي جويسين ماشان معارض كمان تنو مدح دبري وحنا تاكو دديرة لا تكون سوماليات عوين عيدا كبدن meel walba garab yaacaya calaamaanta iyo waxaan la sito Djibouti Eritrea Soomaaliya tii kala garoowe waxaan xasuumad baan ka haysanaa waxaan shir local baan u naqaanaa yani indhaha iyagoo deegaan heer deegaan baan u naqaanaa federaalka weyn baan faraha isku fiiqnaa abiyaan meelaha wada fadhisanaa waan doonayna faraha iska gelinaa fagaarayaasha waaweyn iyo masraxyadaan tagnaa iska malaayaan baatiin meeshiina iska ciyaara garoonkuna waa 12 dhowr iyo 20 mitir 12 qof kawde marka istijiye baa lagu yiri mid baa laakiin idin sheegay dadkayga Soomaaliyeedow masiirkaaga adaa maanta ka mas'uula shacabka Soomaaliyeed ee deegaanka ku dhaqanow adiga ayay ku taalaa hadba sidii lagu qaybin karo waa lagu qaybin shacabka Soomaaliyeed nagu xeeranaynu dariska nahayowna ha ku riyoonina damiirkiina ayanu gelin dadnimadiina ha ka dhaadhicinina taaka dhul oo leeyahay inaad qaadanaysaan taana meesha ka saar laba mid kale waan idin sheegaya waxaan idin sheegayaa miyaanay deegaankeenu mudnayn inay biyo wada helaan macaasimadan jigjiga inta suur la soo xidho miisaaniyada ummadana dhowr milyan laga soo qaato
afar wasiir oo afar saaxiib aad facebook ku leedahayna aad dhowr boqol u dhiibto alaab may naga jaraan mar baan yaa khali waliye haba goos aliyo aaw badbaanu galay mala way ayaanu samayn maxana samayn maysa adeero waa weeyaan ku dhowr qof oo saaxiibnaayba ay ammaan intaan dhowr maxay u dhiibo shaqayn mayso waa weeyaan jarati ilaa muayso iyo meel kasta deegaankiina kala garanba mayna sidii Saciid oo iska dhax cararayna waxaasoo dhan idinka mas'uulka ah waxaan ku idin sheegayaa oo kaliya oo dhab ah Soomaaliya waxaan idin sheegayaa inuu idinku dhaafaya adeerow deegaankan iyo dadkan inaga leh xisbigana waxa weeyaan u shaqeeyayaal shacabka adigu ku shaqeeyaa oo ka awood sareeya maanta ka sii cuna lacagta oo ka qaata codkuna waa meel heegada gaamurtay ee gabalkeedu dhacayna waa xisbigan heega kale oo jirtaa ma jirto wixii kale oo dhani waa shacab Soomaaliyeed oo inaga maqan iyo qaar inaga cararay iyo qaar imika aynu dib u soo celinayno iyo qaar jeel ku jira waa cadaalad dhinac ka raran oon caadi ahayn marnaba heegadan xisbigan heegada ah ee heegadan lagu sheegayo ee halista ku jirta ee habeenka madow gudaysa ee indha habeenada leh ee walibana doonay inala hormar baan idin gaarsiiyay waa iyaga wax ay ina gaarsiinayaan ma jirto waradeero 8 bilood nin walooba adigoon qabiil dhinaca saareen adigoon qof jeclaysi wadin adiga oo siyaasiga xun xaafadiina ay xisbigan ku jira oo aqoonsan inuu yahay dabadhilif daciifa oo doonaya dadkiisa inuu duudsiyo xitaa ka kuugu xiga noqdo waa inaan dhinac uga soo wada jeednaa ballanteenu waa xisbiga Somali National Liberation Freedom Party waa ONLF iyo xisbiga Somali Region Democratic Political Party oo isagana la sarda saddexduba si fiican bay u shaqeeyaan labadaasba si fiican bay u shaqeynayaan qaar kalena way soo galayaan ballanteenu waa inta baylah meel la yaanay ka imanin barbarka ay inaga soo gashaa waa bakay la galeen barbarkay ka baxdaa qodobka ugu dambeeyay kigtay wuxuu yahay propagandaystayaasha bahwadaagta markii hore ay nala ahaa oo nalaf baynu wada ahayn maxaa la oran jiray Cabdiile Downta way nala hayn jiray TPLF Downta hayn jiray imikana dhinaca ka raran sheekad ilaaliyayaasha xisbiga faasidka kuwa go'doomayaasha kuwa gabalkoodu dumay goondhar iyo balay kuwa ilaalinaya waxdan la yaab ku qabaan ma jirto waxa weeyaan ma liibaanaya lagu liibaanay oon is ogeyno waxay gaarka ka hayaan oo mid reerkiina ku jira awgi unbay u xiiqseen 24 saac Facebook galayaan oo website-yada yar eegayaan oo say arkayaan maxay soo post garaan marmar bay u siriyay reerkooda aabalow maxaa jira oo aan kana inta dadku way wada ogi kuwaasna haday idin caayaan ha u joojinina haday idin amaanaana macna ma sameynayso labadaba amaantooduna waa alxamdulillah caydooduna waa rabbil caalamiin kuwa loo joojin maayo inta kale dadka Soomaaliyeed aan idin sheegayaa wallahi oo billaah tallahi degmo kasta ninka guri kula baa guriga kula ninka war dheer degan ee baydhaba ka yimid war qaar baa iska soo galay aroka qoladan yahan ree war dheer degan guriyaha kula te war dheer waa leediina dadka rarmeeno laakiin de kor ha waran anaga leh hoos u dhax hatta kor u tiraadan wallahi wad yaabaysan oo waxaan meeshan anagu kaftanka iyo waxa ma kafta meela aanan ka kaftamin baa jira ana maqashiinina waxa hadda tiraadaan anaga leh idinka yeelimeeno oromadii iyo axmaaradii waxay ku heshiin waayeen hal aad anaga la inta guri ka dhisan ugu faraha badan tii xabashida ayaa adeer iskala guriyaha faraha badan waayo dadkan oromada waa dad la cadaan jireen fara badan dabeetana maadaama guriyo badan ku leeyeen anaga la unbay yiraan maalin dhow dabeetana oromada waxay idinka yeelimeeno tii anaga ladan waxa laakiin iska deganaada anaga ladan imika Itoobiya oo dhan baa laga diidan yahay deegaanka Soomaalida adeerkiisa bada anaga ladan naga daaya anaga ladan idinka yeelimeeno naga daaya hatta hoos u tiraadaan idinka Ilaahay baa isoo guriyaha ka hoos ka dhaxdha laakiin kor hadda u tiraadaan wallahi oo billahi al qabridaa qaar ka soo carari iyo ayaga xagan
أنك رأي أفكار بدأ تسوق أنا مودي تتك يعني كودا ودين وتتك كبلا دع تحبطوا غوروايا هي بد يكب يحوي لدع أنا نبى تمر ويدي أنا ما كا ريب بري أنا أفتح أول شيء فأنا شن مد حبطة بيكون كده أنا ما حد عيب أبني في أورس عشان أنا أنا يو أفكار بقيل تمر ويدي بقى يا نين حبط لقيت أي أبيدان marka nimankaasina inta way dhaadhaareen waxaan ku leeyahay meeshan waa Soomaali dadka degani nin Soomaali inuu dhintana uma baahnine budadkani waxaan iska dhiga xitaa iyagu ay taagan anagu ma nin Soomaali aan qori u qaadanba oo kab iyo waxbay ka sheekeynayaan ama gabar la dagaalanayda raayid ku dhacdo marka waxaan idin sheegayaa hoos u dhah filimka faasidkana saad u dhantihiin xisbiga faasidka cadow kala ma laha oo nala fahmin qaar ay heega ku sheegaan qaar ay onolf ku sheegaan qaar ay maxay ku xisbigaas cadowgiisu waa Soomaali idinkuna saad u dhantihiin afarta laga biilo mooyaane albiilkoodan ha goostaaday marmar baan la hadli jiray intiina soo dhano ku wada tufa waa inaan aragnaa xisbiga faasidka oo filimkiisu gubtay ha kala jeclaanina gebigoodaba buufiya balanteenu waa inaynu buufino deegaamo ay bixin karaan ma jiro kuraasi ay isku dheerayn karaan ma jiro doorashana in lama gelayaan oo lama tartamayaan waynu ognaa waxa weeyaan joogitaan baa la isku hayaa saynu sii joognaa 8 bilood ciyaal badan way muraad dilaaci doonaan maalmo dhow Facebook ay nagu wareeriyay oo hadhowna waxayna arki doonaan iyadoo aan af baan idin lanahay iyo midba waxa shubayo oo hadana wuxuu soo post gareynayo mid wasiir ilaa kulli qaar reerkooda aan waynu magacaabi doonaa kuwaane tabaata inta kuwa reerkooda aan la hadlaan imka aan oranay Facebook madaxweynihii aan laftay madaxweynaheedii baa halka maray dadada kolkaana way inay wareerinayaan maalin dhawaad ooy doontaan aad adkaysi dambe iska lahaada arigiin baska ta imka aad amaantaan anaga hayna idin ku dhaanaba dhaqaalan tan iyo waxba kuma haysaan waa dadka waa nimankan caaya oo waxa weeyaan waxaan idin sheegayaa saad u dhantihiin xisbiga faasidka uga diga dadka biyo la'aanta uu sameeyay uu sababay qurunka ay wadaan kursi iibsigan ay wadaan deegaan duudsiga ay wadaan dadnimo la'aanta ay wadaan dambaabka ay wadaan hantida qaranka ay gaar u isticmaalayaan TV-gooda qurun wadana oo qurun wadadii berdawad baan waan shaqo tagayaayo maalinta CV-ga iyo waxbaan geeyo masaal ay guulo balkaalayo iska imo dabaasana asaan ku dhawaaqnay dhinaca eray bixinta iyo waxma hadana asaan ku dhawaaqay khamiista dambe bala idin timaad marka waxaan idin waa 9 bilood bad mustaqbalkaaga dhan siisan 8 bilood ba hore 8 bilood way ka dambeeyaan wala kala yaa inta qaar been xirxiriba marka adeer waxaan idin sheegayaa balankeenu waa sida baylahay meesha ma jirto hana ka baqanina wallahi reer dheer waxbaan idin sheegayaa caaw ha ka baqanina cid islaam hana ku riyoonina idin ka raraya halka niyada waxaad gelisaan lag milyuuna oo walibana miya sii wada ruuxa niyadaan sii wadan qabiyaale yaxbay oranayaan caaw waxbana habay yiraahdaan aan idin sheegayaa soo kuwa riyoonaya ee gawaarida lagu soo gurayo annagu dagaalkan iyo waxaanaad moodaysaan imika waxaan xabashida waaweyn baan xabada ku ridnaa idinkuna waxaa tiin ku yiri xabada kama cararayno markay gaalka ay waxba isku laayeen ma nimanka iska arisan baa reeg habar gudurtan iyo waxaan sayraa ma xabada kama aan cararayne rag kama aan cararayne xabadanu ka cararayne oo maxaad uga cararteen bal intaanu madax dhiig leentaan arkaan daba dhiig laan aragna bay yiraahdeen hebel dhimay ma durba ma jidho adeero waxaan idin sheegayaa waxaan aad garowa ka soo guraysaan iyo kuwan deegaanka ee daba dhilifkii in masiirka umada kama turjumaan idin mana siin karaan waxbana idin ma diidi karaan yaan lagu waarin kan imika Burundiga ah qabsaday meeshan la yiraahdo Puntland Burundiis baa taadar yaan lagu waarin kuwan xaqan ka soo carcaraya maxaa loo jeedaa ergaabiya xaqana Somaliland xaqa kuraasidina ka doonto xaqan wax badan idinka ma yaal inta naga joogtaan waanu jecelahay mujaahidiin baan u naqaanaa anagu iska jooga oo idin ma nacbin daraawish yaxna waanu idin rahnaa marka adeero hadaad nabad nagula deganaanaysaan weligiin waa deganaanaysaan laakiin meeshan lahaanshiyaheeda baltan iyada ma gelinayno taa iyada ilaa kuwa balbalayd jooga ee magacan sheegtaa
way ka go'anta inaan beltan gelinta wallahi beltan ma gelinin cid aanu ka aqbalayno haddii uu wax kasta dhacay jirata wallahi inaan taagay ka yeelin qoladii raafka abna iska nastamaan leenahay budadkiini waxa dhigacaa oo iyo waxa kaasay yahaayeen nimankii markaa halka gaagaabna waa lagu soo duulay waxbay lahaayeen mar dhaweyd baan la hadlan ku istajiya ayarow taa niyada geliya aroorta aan war sugan idinku imaado ma jidhay